بسم الله الرحمن الرحيم. داودياشا قيمها يا قايها مدمول بوجكتا وحد سلامنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كيني عيش عاشقة عاو برنامج وحاجة لقب قادنا يا أستاذ محمد عمر وكمل الأنيردا آتكي وجوها ولن هو مرينتا للينتا الصوماليات إجرار محمد عمر روح أساسي معهد هو مرينتا آدميجا وكيا لمجال بورما إنجنيركو حمانتا كسوجين هي مجال قاهرة ودن كمصر أو كهل عسومة جاليات الصوماليات وحو محاضرين كلمات قيمة بدن كبحين يا إنجنير محمد عمر جامعة دويني لاسر وحن كسو دويني برنامج كأنه قلقب قاتو إنجنير محمد عمر أهلا وسهلا ومرحبا بك. عليكم السلام شيخ محمد أذيك يبقى عاشقة هي دمان أنت اللي لصعت بعد دون السلامية وأنا ندوي هي ما تنتهي. أستاذ محمد عمر بعض ما سنتهي واحد محمد هذا الشاه هرمرينت بني آدميجا واحد كهذا شاه جعيلك إنه قفكم نفتيس جعلاده ما أنت وما أنتي لو بحيي ما أنت جعيلك دونك فالنتين داي مركا ما دام أتكمل هذا النيرة كوها ولا إني أمضى إسلامك أخذ ما ينسيب جارك أهان كوا في الصومالي كوها الله ما حد كلت لنا أنت الصومالي ما أنت كوين دمدو بعدي إني ما أنت كلية جعيل كديان جعيل كسم أقل ما إنه هل مالين كلية لسيو كسر دو أستاذ محمد. شوف هذا سؤال من تيار في صفدا مركز جعيل لقى هذا اليوم ومسلوين ودرنا ذا إلهي كقرحي جريتان كابن آدم كان إلى أن تدانو ابن آدم كنولان كريم مر والبنو بهاي هنا كما سمين إنه سووا جعلاده وح إنسانكو سجن الله جعلاده وحقوق أساسية وحقوق كل شيء هدو قف وايو إن جعلاده أما يسوي جعلان وينه عاصمات هام وحبضن باكدمان وكوا حق إلهي قفك السيئة إن سجن الله جعلاده سجن وحجعلاده وأنا درين رنتي مقوين oo insaanka noloshiisa tiirasha korhaya kuwa ugu xoog badan la kamida macalaasaf dad badan waxay ka fahmeen fikirro khaldan dad badan sidoo yahay jacaylku si ka yar bay u haystaan ama si ka khaldan bay u isticmaalaan ama wax u eeg bay isaga ku khaldaan laakiin waxaasoo dhan markaan ka soo koobto aan ku koobto arrintaa in jacaylka maalin loo asteeyo waxay la tahay dareenka intaa la eegi ka mug weyn oo ka ballaaran wax maalin lagu koobo oo xuskiisa iyo isdareensiintiisa iyo ku dhaqankiisa maalin ku koobo waxaan qabaa daqiiqad kasta dariiq kasta dow kasta dad kasta mar kasta meel kasta goob kasta ilbiriqsi kasta minid kasta saacad kasta maalin walba toddobaad walba bil walba sanad walba qarni walba waa waxa u baahan inay nolosha bini'aadamka ka muuqato oo ku dhaqmo oo wax inuu insaanku isticmaalo uuna ka manaagsanayn marnaba marka ma qabo inuu maalin ku ekaan karo jacaylku mid baan kaftanay maanta oon arrimaha ku kaftanay markaasaan anigu ku yidhi waar anigu qofkaan jecelahay جعل كانوا قبوا كويه مد مالين كليه لخصو هي مد دقيقات كاستيل بريكس كاستل لخصو ومبيستاهل كاني هيا هي marka waxa ku yiraahday adigu kaagu maalin uu leeyahay sanad ka dhan waa jacayl khilaafo loo laangareynaya marka umar jeeda runtii dad badani jacaylka laftigiisa waxyaabo badan oo khalad ka fahamsan yihiin laakiin waxaan qabaa anigu ma soo toosi karo jacaylaan daqiiqad noloshayda ka mid ma noolaan karo jacaylaan waxaan jecelahay naftayda waxaan jecelahay ilaahaygi abuuray waxaan jecelahay nabigii ilaahay soo diray sallallahu alayhi wasallam waxaan jecelahay dadkii la rafiiqay waxaan jecelahay qoyskayga waxaan jecelahay walaalahay waxaan jecelahay adduunyada dadka ku nool ee shacabka waxaan jecelahay muslimiinta waxaan jecelahay dadka wanaagga sameeya waxaan jecelahay shay kasta wanaagsan oo diyaar yahay نعم مدة كلية ما نوران كرت جعلان. جعل كنا ما هم كابو قادو
xaajiyada ama xaaska kaa u qaada laftigiisu maalin keliya uun in la xuso ama haboono waa in ilbiriqsi kasta iyo daqiiqad kasta la muujiyaa oo la isku sheegaa oo afyaadiisa lagu cabiraa oo loo dabaaldegaa oo nolosha lagu qurxiyaa. ustaad maxamed aad baad u mahadsan tahay. waxaad maxamed aad iyo aad uga hadashaa marka aad qoraallo cajiiba oo intaasoo kun oo soomaaliyeed ay taabicayaan aad barta facebook ku soo qortaa waa markaagii. ereygaasi asal ahaan xaggeen buu ku leeyahay? uba iyo gun intee lag baa laga qaadanayaa? maxaad uga go' leedahay markaa leedahay waa markaagii? asal wuxuu ereygani ku leeyahay sheekh maxamed in insaanku uu dareemo inay tahay daqiiqada uu ku jira daqiiqadii wax kastuu ku hamiyey inuu qabto ku habbooneyd ay tahay. wuxuu ka soo jeedaa asal ahaan iyo ujeeda ahaan waxaan ka soo qaatay xikmadda ah inaanad maamuli karin daqiiqadii ku dhacday ta kugu soo socotana aanad tale ku lahayn oonad awood ku lahayn laakiin taad maamulkeygii qorshaheega leedahay ay tahay taad ku jirto. sidaa darteed inaad taas aad ku jirto dareento inay taasi markaagii tahay oo ay kalkaagii tahay oo daqiiqada aad ku jirto aad wax bedeli karto si kale wax u arki karto waxaad samaysay wax ka duwan samayn karto dareemi karto inay tahay daqiiqadani daqiiqadii inaad noolaata ay tahay. marka ujeed ahaan wuxuu ka soo jeedaa inuu qofku bilaabo shaqadii noloshiisa uga baahnayd ee bedeli lahayd maadaama waqti badan ku soo qaatay inuu dadka kala daawado waxyaaba dhacaya daawado qisooyin dad kale akhristo inuu qofku dareemo in markaa uu ku jira ay tahay markii isagu inuu noolaada ahayd. hadduu dadka mahadin jiray isaga la mahadiyo hadduu dadka daawan jiray isaga la daawado hadduu dadka u sacbatuun jiray isaga loo sacbatumo hadduu dadka ka sheekin jiray isaga laga sheekin hadduu sheekada akhriyihiisa ahaa isagu noqdo ka sheekadiisa la akhriyo. ujeeda ahaan wuxuu ka soo jeedaa dhiirigelintaa inuu qofku noloshiisa bilaabo daqiiqada uu ku jiro. aad iyo aad baa u mahadsantahay ustaad maxamed cumar. maxamed kalimaadka qiimaha badan leh ama youtube ha noqoto ama facebook ha noqoto ama twitter badanaa waxaad tidhahdaa caqabadda qofka haysata waa noloshiisa. inagu soomaali haddaan naama dadka bani aadamka waxay u badan yihiin markay caqabad ku timaado inay eedeeyaan dhaqaale la-aan ehelka meesha ay joogaan bey-adda ku xeeran waxaan waan samayn lahaa waa kala tuuri lahaaye jaanis baanu u helin waqti baanu helin meelo kaleanu eedana waa aad bay u adag tahay ama u yartahay dadku inuu naftooda ay u arkaan inay tahay caqabadda keliya ee guusha ka hortaagan. arrintaas sidee baad muxuu ay ku sharaxi kartaa? waxaan uga golaya akhi qofku laba jeer ma guulaysto hadduu laba caado yeesho. intaanu qofku baran inuu mas-uuliyadda noloshiisa qaado way adagtahay inuu guulaystaa. ta labaad markuu insaanku ka cararo waaqiciga nolosha ku jiro markuu ka cararo ee uu cararo 515 sannadood ka hor beri baan lacag lahaan jiray aabbaay baa beera lahaa dameer baan lahaan jiray beri baan gaari wadan jiray beri baan 15 sano wax la soo dhaafay ka hor buu ku ordayaa qof ama wuxuu ku ordaya waxaanan la arkayn mustaqbalka maalin bay hagaag waa diido laba cisho maalin waa adiga maalin waa saaxiibka maalin bay wax isku beegmayaan. qofkii wuxuu ka ordayaa mar walba waaqica uu ku jiro. way adag tahay dadka yidhaahdaa inaanaa hadda isbedelayaan inaan guuldaraysto anigaa u sababay wax kastoo igu dhacay sababteeda anaa lahaa anaa nacam fashilkaas anaa isku geystay anigaa wixii layga baahnaa samayn waayo way adag tahay. marka waxyaabaha guuldarrada inoogu wacan ee dib inoo hayo waxaa kow ka ah because waxaan nafteena ka ilaalinaa dhaliishii ay mutaysatay. abtigii baa lacagii soo diri waayay saa darteed jaamacadda ma dhiganayo. islaantaa igu xumaatay sidaa darteed wax ku wasiifgaraysan kari waaye. ciyaalkii baa iga wada saabsaday sidaa darteed waa niyad jabay. qiil mar walba cid kalaad saaraysaa laakiin sidaas sunnada noloshu maaha sunnaha noloshu sidaa. noloshu waa give and take. wixii kaa baxa ee aad adu tustay ayay dib kugu soo celisaa. waa muraayadaad hor taagan tahay noloshaada. haddaad aragto noloshaadii iswada gashay oo cidhiidhi ku jirto dhinac buu dhaqaaqi laha waayo waxaad misuse garayso si xun u isticmaashay kharashkaaga waqtigaagi baad si xun u isticmaashay saaxiibo xun baad la baashashood waqti badan la qaadatay fikirkaagii baad jihayn weyday
qorshaad yeelan weyday nacam wax walba oo kugu dhaca sababteedu waa adiga maaha inaad cid kale eedayso marka waxay saxmayaan waxyaabaha khaldani marka la garto mas-uuliyadda hawshan dayacantay cidda leh ciddaasina waa adiga markaad ogaato inaad adigu dayacdo wixii inaad qabatay ahayd ayay imanaysaa inaad fixi kartaa laakiin intaad ka ordayseed cibaadadii jaarkaada haydeen xaaskii horeed kala tegteen inankaaga curdeeda xumaaday waddankii aad ka timiday cimilada waddada jaamkii laamida xidhan intaan waxaa uun eedaynayno waxaan kala ordaynaa eedda nafteena mana guulaysan karno waxyaabaha inoogu wacan ee guuldarradu waa inagaanan gaarantii ee gaadiyaan alaab iibsano dukaanka gaarantii baan ka qaadana waxaan leenahay haddii uu jaba alaabtaasi waan soo celinaya waad kala sixanaysaa laakiin naftaada ma kala sixaaxatid inta inagu nafteena gaarantii kama qaadano fara mar walba cid baan farta ku fiiqnaa laakiin waxaan ilownaa afarta farood ee kasoo haray fartaa inay inagana soo eegayaan mar walba waynu isla qumanahay oo cid kale ku canaananaa duruufaha nolosheena laakiin waa khalad weyn weeyaan ma guuldarraysanayna intaan nafteena dhaliisha ka dhowrayno waa inay nafteena faraha ku fiiqnaa waa inay nafteena saarnaa dabka waa inay nafteena ka dhignaa first priority waa inay nafteena noqotaa qofka ku dhaliilan ee ku cambaaraysan howlqabad la-aanta guuldarradeedana inaad tiraahdo anigaa guuldarraystay taasay guusha keenaysa talabaadayna haysaakhi waxa ka mid ah waxyaabaha aadka inoo haya ayaan inta badan ka hadlo baan sugnaa sugayaal baan ahay intay wax saxmayaan baan yar intuu hebel iyo hebel heshiinayaan intay shaqo fiicanan helayo intay ciyaalku jaamacadda ka baxayaan inta nolosheenu waxay noqotay nolol wada going to be marka waxaa leedahay nacam time limitation bay ku xiran tahay mar walba mayne wax shuruud baan ku xidhnay nolosheen niyahow anuu dhaqaalan yeelan lahay waxaanan lahayn guri kirayga dishi kiradii buu ka baxayaa oo gurigu yeelanay niyaanu wallaahi waxaa noqon lahaa nin nolol fiican ku nool laakiin xaaskayga israaf badan wallaahi wax badan baa shaqayn mar walba wax maqan oo shuruuda waxaa adkaatay waxaad haysatay inaad ku xisaabtato tiraa okay anu intanaan hayaa intan maxaan ka samayn karaa because nolosha kama samayn karno wax maqan waxaynu ka samayn karnaa waxaynu gacanta ku hayno markaynu ku jirno daqiiqada aynu ku jirno waxa mulkiyadeena aynu nolosheena ka samayn karnaa taasi waxyaabaha barnaamijyaadkaan bixina ee daaran horumarinta aadamuhu inta badan ka hadlaan insaanka waxa dib u haya iyo waxa hore u dhaqaajin karaa iyo maxaa insaanka u saamaxaya meeshuu joogo inuu ka gudbo oo uu tago meeshuu rabo waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala waqtigana siiyey waxaan u mahad celinayaa ustaad maxamed cumar oo isagoo qaahira jooga waddanka masar interviewga qiimaha badani siiyey intaynu ku kulmi doono waraysigan oo kaleeto waa isha caashaq oo idin leh ma dhabbaa jacayl waa loo dhintaa